kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni waayaha nolosha toddobaadkan waxa uu idinka imanaya magaalada Hargeysa qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah shaqooyinka wax weeyaan dharkaan maydhnaa guryahan maydhnaa rogagan maydhnaa waxyaabihii magaalada ka soo baxo dhammaan qabanaa mulbaan hayaan ugu imika marka ubadkii raaba noqonayday in guryaha ka shaqeysan awood kaariin buu wadaa ma dabiri karo dayso waxbarasho iyo iskuul waxa ma dabiri karo marka waxyaabahaas aan ugu kalifay inaan waxbarashadoodii ubadka dabarno waxaad kala wad barnaamijkeena ku maqli doontaan daawadayaal waxay ka sameysay taayiro aagado beedka baasha lagu gurtay la tuuro waraaqo sidoo baxida arkisid taasadii caanaha niidooga caagidihii mooysaxada iyaga laftooda leerarkii hurdada aan ka sameynay keega waxa yar keega lagu sameeyo waraaqaha yar keega lagu sameeyo iyo waraaqahani airport ahayde caadiga ah aynu wax ku qorin jireen oo aan ku soo qurxinay xafiiska wad dhigan kartaa qalimaantaad ku guran kartaa inantu qalisunayaasheedii make-upkeeda way iskaga guran kartaa aynu ku horeyno daawadayaal waxa jira qoysas badan oo ku nool magaalada Hargeysa oo danyara waxa u sii dheer sixir bararka ma haystaan nolol maalmeedkii ay ku noolaan lahaayeen taasi waxay kaliftay inay u soo baxaan haweenka qoysaskaasi suuqyada magaalada Hargeysa si ay u kafaalo qaataan qoysaskooda waxa jira haween iyagu ku shaqeysta inay dharka u soo meedhaan guryahana u soo nadiifiyaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ma haystaan xafiis loogu yimaado balse taa beddelkeeda waxa loogu yimaadaa gidaarada iyo geedadka ka dambeeya idaacadda raadiyo Hargeysa waxaanu ku booqanay halkaasi ay isugu yimaadaan warbixintan ayaanu idinka haynaa السلام عليكم سكور هما فاضمة واحد يجور رنتا وصلات هراء حلو هرانا هالكم واتمد بل واحد تمد إياه واحد دير كان أذكره قبل نسبة يجور هما وبدير ربنا نصور شقتها جي صبحي ساكت دقور جي ما كسوق الله هاي مركا أرساقدان صور هاتنا هالكم صبحي وصفر سنة محا هالكم أذكره بل يجور شقوين كان كسكنه شقوين كوحوين داركان ميرنا جريهان ميرنا روجان ميرنا waxyaabihii magaalada ka soo baxo dhammaan qabanaa hawla marka anagu dadka dumarka waxaan hay hooyooyinka ah ee shaqooyinka ka ganacsada waayahay wallahi dumarka iska xoogsadaan nahay wali cid wax noo qabatay anagu ma naan arag waan iska shaqaysanaa xoog ayaga ma ku ganacsanaa dharkaan meedhnaa guryahan soo maxay guryaha waan soo meedhnaa waxa ma ka soo shaqaynaa laakiin wax kale oo qasaalad dadku meedhaan mishiinka dharka meedha iyo labadaba waan ku soo qabanaa qofkii gacanta noogu meedhidaan gacanta noogu meedhnaa qofkii qasaalada haystan qasaaladii gacanta waa la isku raaciyaa marka waa arrimahaas aan ka shaqaynaa anagu maxaa kalifay inaad deyrka soo fadhiisataan midan guri aad si iskiin uga shaqaysaan oo ku noolaataan ayna jirin ruufaan ugu kalifay waxa weeyaan ubad baan haysanaa ubadkii waxbarashadoodii ayaa waxaan hayday aan soo baxnay quutal daruurigoodii marka deetana ubadkii ciyaalkii maxay hayday dugsi sare dhiganayaan cid naga bixisan kala ma hayno halkaas aan ka bixinaa jaamacaday qaarkood ka bixiyaan marka waxyaabahaas aan ugu kalifay inaan waxbarashadoodii ubadka dabarno oo halka ugu soo banaan baxno markii day aabihii quutal daruuriga iyo ubadkii waxba isla keeni waayay mulbaan hayaan ugu imika marka ubadkii raaba noqonayday in guryaha ka shaqeysan ay goormaad soo noqotaa marka yoomkii markaan subaxii ka soo baxo maalin walba shaqada intay kaga soo dhamaato baan ku soo noqdaa marka maalin walba shaqada heshaa may waqtigu maalin waan helaa maalin waan waayaa waska saas maalinta ugu badan waxa ku soo xarooda maalintu ilaahay shaqo fiican siiyo maalinba waa nooc maalinba waxbaad la kulmaysaa marka maalintaad maalin badan tahay $30 hesho $40 hesho way jirtaa maalin ka yaraad hesho way jirtaa $10
$5 kolba wixii ilaahay ku siiyo weey wax ها maalin $4 hesho jirtaa maalin banooc weey markaas duruufaad sheegtay in maxay imikaad umul tahay baad sheegtay 7 subaxnimada dadmihii ka soo baxday baad sheegtay bal waxaad iiga warantaa sidee dadku idin qaabilaan dadkaan u shaqeynaa dadku aad bay wanaagsan marka qaar wanaagsan oo noo naxariista way jiraan oo si fiican noo caawiyo maaragtay lacagtii aan kula heshiinay waxyaabo kale oo dheeraad ah noogu dara markaan xaaladaha ayaga in arkaan dad iska intay aad kula heshiisan ku siiyo waad arkaysaa qaar aan waxba ku siin oo intii kula heshiisay badil qaad kaga heshan way jirtaa waa saas bini'aadanku isku dawlad cusub baa dhalatay sanad cusub baa dhashay maxaad ka codsanaysaa bal inay camal noo sameeyo ma ka codsanaynaa on ubadka waxbarashadooda musabix ubadka waxbarashadooda inuu naga qaabilaan ka codsanaynaa hay ubadka waxbarashadooda gidaarada u fadhiisanay inuu naga qaabilo waxbarashadaas wax nooga qabtaan ku codsanaynaa anagu dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in iskuuladu ay yihiin bilaash waxba bilaashna ma ahayn bilaash intii hore way haayeen dugsiyada hoose qaar bay bilaash noogu soo dhigtay laakiin imika dugsi sare iyo dugsi hoose wal lacagtooda naga qaadaa marka iskuulkaas dugsiyadaas oo kale haddii waxbarashadaas bilaashna looga dhigo anaga aad iyo aad bay gargaar noogu noqon lahayd marka yoomka aad soo shaqaysato bad ku dabartaa yoomkaan soo shaqeeyay maalmaha qaar kood baan helin boonde waxa liixan kaga dabaraani jirin oo bilbil baa la fadhiyaa meesha bilbaan shaqo la helaynba marka dadana camalkiina iska dadkiina way ku badan yihiin magaaladana abaariyo bisaarada ka jiray marka duruufahaas iska jira carruurtaada waa bileeyeen Soomaa hayaa bood muxuu qabtaa bood kaariyoon buu wadaa kaariyoon la weeyaa markaas dabari kara marka ma dabari karo isagu waxbarasho iyo waxyaabo waaweyn oo noocaas madrasad quraan iskuul waxa ma dabari karo halkaas ka dabara gidaarka fadhiyo codka koriyo qaaday fadxiya deyrkan aynu imika hor taaganahay maxay hayday sida qashinku u yaalo dhaxantu dhacayso maxaad u timid shaqo inaan ka shaqeysto waxaan halkaas soo fadhiisanaa 6 subaxnimo marka dharmayd iyo gurmayd wixii ilaahay naga siiyo yaanu ka qabanaa dadku way ku yaqaanaan way diimaadaan marka dambaana soo saartay iyo wax la'aan marka odayga kuna camal ma hayo marka halkaas aan uga shaqeystaa ciyaalku bariiska uga ritaad wadanka waa iska fadhinaa shaqo hagaagsan ma jirto marka waa nafta ma ku meermeerinayna iyo ku soo helaa marka ma ogashiino maxay hayday in xafiis leedin furo leedin ku yimaado diyaar mootiin si halkan bad kaga kalsoontii may diyaar baan u in loo sameeyo diyaar baan u marka halkan ilaa 50 haweena baa la sheegay way Faaduma ay sheegtay 50 kiina haweena ma leedin gudoomiye mise qof walba iskiin buu soo baxaa hadii xafiis imika leedin furo oo guri leedin fadhiisiyo ma dooranaysan gudoomiye ku xigeen maalin bicid loogu yaaro oo dooranayna daragteen wax idin dhiba ma darag waxna dhiba wallahi ma aragno waxna dhiba ma aragna ilaahay dad wanaagsan uu noo keeyay toddobada subaxnimo timaadaan toddobada subaxnimo waa xilli hore dumarna waa tihiin hooyooyina waa tihiin tuug baa wadanka maxay hayday joogtaa iyo dhalinyaro yaro iska suuq jooga ma idin dhiban kuwaasi may walaahi wax walina dhiba ma aragan nabadood ka joogtaa idaarka nabad baan ku joognaa waxna dhiba ma arag ilaahay nama tusin wali maxaad ka codsanaysaa marka dawladda inay iyo dadka kale ee taajiriinta ah ee ganacsatada ah waxaan ku codsanaynaa inay caawiyaan ay wax noo qabtaan ee hoos noo eegaan sida dharka u meedhan lacag marka dharka ma wax idin go'an u bad ku qaadataan markaan dharka aragno baan qiimihiisa goosanaa halkaas ma ku heshiina haday badan yihiin oo kolba siduu yahay dharku baan ku heshiina marka كلا ولا
badxiyo laba shaqaynu haynaayo dharkana aynu meedhayna barnaamijkuna inoo soconayaaye waa barnaamijka waayaha nolosha ee Universal TV ka baxa ma dharko kaliyaad maydhaan mise shaqooyin kalena waad qabataan wixii naga soo baxba waan qabanaa guryahan maydhnaa bakhaaradan maydhnaa wixii waxaan ku dhinaa loo dalbada waan maydhnaa soo maydho wasaaradaha ma waxaad iga warantay halkee laydinku soo hagaaga gartay halkii aan idinku yimid in laydinku soo hagaago laakiin sidee dadku idinla soo xidha ma inay halkaas idinku yimaadaanba mise siyaabo kala jirta lambarkana nagala soo xidhiidhaa telefoon lambarkay naga qortaan telefoonkaas ma nagala soo xidhiidhaa marka inta badan intaan lambar ku shaqo tagina ka badanba intaad nambar ku shaqo tagisaana laydila soo hadlaya idinka guriga jooga yaa ka badan waan soo dhamaynay marka waan bilownay waan soo dhamaynay marka waan xalaynay bas marka xariga inka lagu warayaa markaas imise jeero ay soo gelisay waxaan soo gelinay 4 darbadood baa la geliyaa caadi ahaan darbadna waa lagu xaleeyaa saas lagu soo waray shayba sidoo qaadan kara marka saamuunay iyo mid xalaysa hay dadna imika wari dib gaar wari dib gaar ayina wada marka waa saas goor dhaweyto marka inta dharkan warin xariga wad masaxaysay dhas siigada soo dhacaysa laga sii masaxa xarig marka dadna shaygii oo nadiif ah la saaray si hadhow toolaane maryahaasi in waxba soo gaadhin marqooyin baad ku masaxaysaa taashka wixii ku sii dhacay dhas marka waa saas muna waxay ka mid tahay daawadayaal dadka dharka loo meedho ee guryaha loogu yimaado waxaan iyana weydiinaynaa bal sidii dadka ugu yeedhaan hablaha shaqeeya ee magaalada Hargeysa dharka meedhe ee guryaha meedha sida ay ugu yeedhaan iyo sida ay wax ugu qabtaan iyo bal waxyaalahaas aynu ka wareysanaa nuura marka hore aad baan ku salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa TV-ga caalamiga Universal markaan salaanta ka soo gudbo sidaan dadka ugu yeedhano dharka noo dhaqa si su'aashu ahayd walaal telefoonkan kala macaamila telefoonkoodan garaacaa dadna saas ay igu yimaadaan markaasaan hawsha u diraa markaan waayo telefoonkoodana waxaan ugu tagaa goobta laga helo markaasaan ka soo kaxeeyaa dadna gurigaan keenaa markii dharka ku meedhaan imika oo kale wax ma la qabataayo ma la shaqaysaayo dharka ma ka wadaayo ma ka soo gurtaayo haye walaal waan ka soo guraa waana la maydhaa waayo dhawaa gabdho Soomaaliyeed oo maxay walaalahay ah oo shaqaysanaya oo dantooda u soo shaqo tagay marka inaan wax la qabto anigaaba ku faraxsan daawadayaal aynu soo qaadano qodobka xige ee barnaamijkeena waayaha nolosha inta badan Soomaaliland waxa ka jirta shaqo la'aan dhalinyarteeduna way tahriibtaa laakiin taa beddelkeeda waxa jirta dhalinyaro shaqaysata isla markaana la yimaada fikir ganacsi oo kala duwan hablaha ka baxay jaamacadaha Hargeysa qaar kamid ah ayaa waxay la yimaadeen fikir ganacsi oo ku cusub geyga Soomaalida waraysigan ayaan idinka haynaa adiga waranta alaabtan aad sameyseen ee guryaha lagu qurxiyo ee fadhiga ah ee kuraasta leh ee aad ka quruxda badan leh bal waxaad iga warantaa siday ku dhalatay inaad sameysaan walaarta waxa ku dhalatay waxa la arday oo macallimiin isku jirta kabacdi baa iyadoo shirkad xalkeyga la xalinayo bay ku timaaday fikirkani shirkadda xalkeyga baa waxay keentay in qof walba shirkadu mustaqbalka jecel yahay sheegto kabacdina sideen shirkadu ku gaari karnaa maxaan imika sii bilaabi karnaa dan lacagtii shirkadaha haysan ayuu ku timaaday fikirkan uu dhashay maalin bishii 9aad sanadkiina dhaafay 14keega sidee markaas sidee idinku ku dhashay inaad u sameysaan والله wuxuu noogu dhashay waxaan artay isweydiinay maxaan shirkad ka dhigi karnaa maxaynu sameyn karnaa
markaas waxaan ogaanay alaabaha la isticmaalay la tuuro inaan anaguna wax ka sameyn karno waan intaan alaabihii la tuurayay magaaladina bilicdeedu ku foolxun bal inaan wax ka dhigi karno isku daynay alxamdulillah waan ku guuleysanay inaan kuraasada quruxda badan nooraa ka dhignaa arkaysin alaabahan quruxda badan leen u jeedno waa maxay ka samaysan walaal waxay ka samaysan taayiro caagado beedka baasha lagu gurtay la tuuro waraaqo sida waxyada arkaysid taasadii caanaha niidooga caagadihii mooysaxada iyaga laftooda leerarkii hurdada aan ka sameynay yani waxaasoo dhan bay ka samaysan yihiin alaabtan sameynay marka waxa weeyaan alaabtii la isticmaalay ee la tuuray weeyaan dabcan alaabtii la isticmaalay dadkayna waxba u haysan ee magaaladana fool xumeynayso man anaguna qaadnay oo wax ka sameynay alaabta quruxda badan ka sameynay meel walba la dhigan karo marka alaabtan quruxda badan leen arkayno mariya ayaa dusha kaga xidhan iga warrama bal sidaad u samayseen qaal waxaan u sameynay waxaan sameynay markii ugu horeysay taayiradu waan soo urursanaa taayirku waan marnaa kabacdi burush baa gala blue wordkii baa gala qalabkii kale lagu sameynay baa gala maradii baa laga qurxinaya waxaasoo dhan bay qaadataa in alaabta lagu qurxiyo lagu sameeyo kabacdi waxay soo baxdaa fadhi caadiya waa hagaag alaabtan marka wax maalgelina ma hesheen may weli wax maalgelina umaanan helin laakiin dhammaan waana la soo wada dhaweeyey qof kastoo arkan uu ku farxay qof kastaana wuxuu idhahdaa waxa fiican in la yid maalgeliyo laakiin weli imika kuma odhan karo maalgelin ramsi ayaan helno oon ku dhaqaaqi karno shirkadaha ayaa soo saara qalabka faraha badan leeya alaabaha lagu sameeyo haysta idinku sideed u samayseen sidee ayaad alaabtan u samayseen haddaydaan wax qalaba haysanin ma irbadiyo dunbaa qaadeen ma dubeeye miishaar baa qaadeen sideed u samayseen harta waxaan u sameynay fadhiyada alaabaha lagu sameeyo caadiga qalabkiisaan u sameynay annaga ayaa kharashaadkayga isku urursanay annaga ayaa soo iibsanay kabacdina waxaan ku sameynay haddii wixii fadhi geli jiray oo dhanba ee lagu sameyn jirayba qalabkooga waan ku sameynay oo haddii ahayd maxaa la dhahaa biigadaha fadhiga haddii ahayd burshadiisa haddii tahay baloonada la geliyay ayaa wax kastoo fadhi gelayay qalabkiisa ayaan ku sameynay anagoo laakiin isticmaalana aanu warshad isticmaalayno qacanteeda isticmaalana intaas ma kaga duwanaan qacanteeda anagu ku isticmaalina ku sameynayna alaabtan quruxda badan leen imika arkayo waa faraawil loogu talagalay miiska midabkiina way leedahay waxa uu eegtay miiskan aad samayseen baliga waxa maxay ka samaysan kartaa waxay ka samaysantaa walaal waraaqa ee fortiga caadiga ah suuqana lagu iibiyo caadiga ay fortigaasaan qaadnay farsamadeedii maskaxaan ahaan baan u bixi dibadda soo degay laftiisa uga dhignay kabacdina waan kala dhaynay kabacdina fadhi walba waanu eekaysiinaa waana fadhi walboon iibinaynana waa alaabahan u raacino qofka dasbinka ubaxyadu dhigan karo miiskaanba ku sharxan karo iyo ubaxyadan arkaysa caadigaaba marka midabad marisay midab marna marka waraaqay ay fartiga markan ubax ka dhigno midab marno oo kuwa soo baxay ubaxaad arkay sidee quruxda badan ee ubaxi dibadda u eeg in badan qofku haysan karo imisa hablood baatiin waxaan walaalo 10 hablood marka horna waxaan ku bilownay 5 iyo 10 hablood laakiin alxaasim markii dib waxaan iskugu saarnay 10 hablood oo alaabtina ku guuleysanay halkan waa xafiiskaygii imika alaabta noo taala ama qalabka noo yaala ma aha qalab aan kala nimidnay kuwan dibadda inooga yimaada ee waa qalab aan anagu gacmahayga ku samaysanay waa kuraasidii waa miiskii waa kursigii xataa miiska uu lahaa falaawiladii wixii oo dhan waa wixii aan gacanteeda ku samaynay lama socdo oo waa alaabtii la tuuray waxaad kaga duwan tihiin meelaha kale alaabtii la tuuray ee la isticmaalay one time use-ka ahaa ayaan anagu dib u soo saarnay ama aan dib u soo qurxinay kursi hadday noqoto miis hadday noqoto faraawil hadday noqoto miis xataa hadday noqoto waa wixii aan anagu gacanta ku samaynay ee markii hore la moodayay xashiishka la tuuray imika kale tan waxa weeyaan daasadeeni caananiidooga ahayd oo aan ugu talagalnay dustbin waxaan kaliya aan qurxinay in lagu gurto dustbinkii macnaata dibadda inooga imanaysay aan uga maarano oo qurux iyo fadhi ahaanba way u eeg tahay
kumana dhibaso waqti badan ma qaadanayso allahumma salli ala maxamed kan oo kale waxaan ka sameynay keesaskii beedka ee la tuuri jiray iyo cupcake keesaskii beedka iyo cupcake-gan yar ee keega lagu sameeyo iyo waraaqo isku jiriya maro waxaan ugu talagalnay kadar ahaan fadhiyada in gidaarka la sudho maanaata kadarada dibadda inooga imaada fadhi kastana aan u iibsano sidii looga maarmi lahaa ayaan local ka dhignay kuwan oo aan ugu sameynay oo fadhi kastana u ekaysiinay imika haddaan usoo gudubno kan waxa weeyaan laydharkii qolka hurdada la dhiganayay iyagu waxaanu soo iibsan jirnay dibadda inooga imaada ama quraarada ama dhisaynadan oo kale leh waxaan ka sameynay caagadeeni mooye saxada dhagax ee biyaha laga cabi jiro maran iyo dhagaxaan iyo xadhigan oo isku xidhiidhnay laambadiisii oo ku jirta qurux ahaan alaabtana ka dhex galo waa electronic marka si loo eego dabkii bay dhalinaysaa soo ma haleelkii la gelinayay ha iyaa idin sameeyay kan anakaa sameynay kadib fiishta haddaad gelisid caadi wuu iftiimayaa waxaa kadib biyaha laga cabayay xashiishka noqonaysay magaalada fool xumeynaysay oo sidaa loo qurxiyo leydhkaa loo geliyey ta ka hooseysa xataa waa iyada waa waraaqaha cadcad ee wax lagu qorto sidaa loo qurxiyey waxaa jirta oo kale caagadaheena mooye saxada oo aan ka sameyno fadhiyo ama gambadho kale waxaa jirta gambadho lagu fadhiisto oo dibadda inooga yimaada oo caag ah kadib sidii aan uga maarmi lahayn gambadhadii ayaa waxaan sameynay caagadaheeni mooye saxadii oo ah kuwana oo lagu fadhiisan karaya caadi waxay ka samaysan yihiin waa caagadii mooye saxadii iyo baleyhood isku jiriyo bush haddaad ku fadhiisatay xataa maku dee kulama dhacaso iskuma diicsamaso caadi dama'niinadaada ugu fadhiisan kartaa imika oo kale allahumma salli ala maxamed haddaan soo sheego wuxuu ka samaysan yahay caagadii mooye saxada isaguna laftarkeeda xagga hoose kaga jirtaa waxaana aan dusha kaga qurxinayna waa cupcake keega waxa yara keega lagu sameeyo waraaqaha yara keega lagu sameeyo iyo waraaqaheeni airport ahayd ee caadiga ah aynu wax ku qorin jirnay oo aan ku soo qurxinay xafiiska waad dhigan kartaa qalimaantaad ku guran kartaa inantu qalisunayaasheedii make-upkeeda way iskaga guran kartaa wax kale uma baahna kani sidoo kale waa miis wuxuuna ka samaysan yahay caagadii mooye saxadii kan wuxuu kaga duwan yahay kaa baleyhood baa ku jira balse kan baleyhood ma ku jiro oo waxa ku jira kartoon keenan biyaha lagu keeno waad ku fadhiisan kartaa imika waad tijaabin kartaa adiga laftarkaagu samaysay maxay hayday waxaad u samayseen lugahani maxay ka samaysan yihiin lugahan waxay ka samaysan yihiin koolka bahalka looxa yar ee koolka laga tuuro oo isagu markuu koolku ka dhamaado aynu iska tuurno ayaan luga uga dhignay waad arkaysaa imika gambadh caadiyaa la moodaa waanaad ku fadhiisan kartaa dee kumana qabanayo oo caafimaad ahaan uu ku fiican yahay waayo buush baa ku jira maxaa la idhahdaa waxaanan u baahannahay insha allah maalin dhow inaan soo saarno caagadahan mooye saxada laftarkooda oo fadhiyada dibadda inooga imaada oo kale ah 2 kursi oo isku dhajisan 3 kursi oo isku dhajisan 1 kursi oo waaweyn yani fadhiyadeena saaloonkii waaweyn ma waxaad barateen sida loo sameeyo alaabtaas mise maskaxiyan baad ugu shaqeysaan maskaxdayadu ugu sameeysan mise meel baad uga shaqeynaa waad barateen may walaalo hadaan kugu idhaahdo inaan naga mid ah ayaa farsamada gacanta baratay ama iskuul uga soo baxday beeman ku sheegay laakiin maskax la isku geegeeyaa waxay dhalisaa fikradda aad arkaysi maskaxdayda isku geysanay inantan maanta fikrad baa ku soo dhacday ani fikrad baa ku soo dhacday waan isku geynana saabu ku soo baxaya waxa aad arkaysid saas uma ku timiday tani misleedihiin alaabtan waxa lagaga maarmayaa alaabtii dalka dibadiisa inoo geeyay ha dalkeenu aad iyo aad wuxuu ku liitay wixii local ah ama local production la yiraahdo wax soo saarka dalka ah sidii aan uga duuli lahayn in uu dalkeenu noqdo markasta de wax dibadda looga baahan yahay ayaanu ku fikirnay inaan soo sameeyno waanan isleenahay insha Allah ta'ala in lagaga maarmi karo dhalinyaro badanna aanu qudwo u noqon karno ama aan hormood u noqon karno insha Allah ta'ala waa shaagagii alaabtan badankeeda aad ka sameyseen ha shaagagan waa isbeer ahaan oo kale imika waxa jirta shirkado markay wax soo saar sameynayaan waxbay dhigtaan
iminka intaananu bandhiga samaynin ayaan shaagaga soo urursanay si aan uga maarano soo urursashadiisa. Iminka haddii fadhi lasoo dalbado banjarle lama tegayo meel kale kaliya way taala alaabti waad soo guranaysaa kifaaya waad samaynaysaa. flowerkan aad arkaysid ama ubaxan aad arkaysid waxaanu ka samaynay keeskan beedka oo markiisii hore sidaa ahaa haddana wuxuu isku bedelay sidaa annakaasaa u qurxinay. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وشادية شعبدي وحن كم ده هبلها هلابور كلني مدي دنا كلو حنا قدوميها هبلها وإن شاء الله مستقبل كوا حرجين إنه بدل دونا وحكست أو بدن كدبدي سئنو جي ماده وأنا نجا عنتي إنه قصة ميسون دونا إن شاء الله لقينا مار مكر وح بنان كجي مد قالئة أم بمحل عشرات فربضان لقصو بحية وحنا إن شاء الله رجين إنه هلا وحنا نجا عنتي إذا قصة مينو أو قريه يجي يودن كيجي بلقو قرحية إن شاء الله وأنا نجا gacanteena ku sameeyno in Soomaaliland oo dhan wada gaarsiin doono goboleedyada iyo meel kasta insha Allah in mustaqbalka ay rajaynayna dhalinyarta Soomaaliland ee tahriibaysa ee wax baratay ee bilaa shaqada ah maxad iyagana leeyihiin horta waxaan leenahay dhalinyarada shaqo la'aan ma jirto qof kastaaba wuxuu sameyn karaa qofka dhalinyarada intuu ku fikirayo tahriib oo maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha laga soo daba diro oo meel tag waxa ka fiican inuu hal abuur la yimaado si loo caawiyo oo maxaa la yiraahdaa dadkiisa uga qayb qaataan wadankiisina wax uu qabto meesha uu tagayna isagu ma laha ee halkan ayuu leeyahay marka qof kasta oo dhalinyaro ah waxaan oran lahaa maskaxdaada adeegso maskaxdaada ka shaqaysi maxaa la yiraahdaa wadankaaga wax kala soo bax fariinta saddexaad waxaan u dirayaa dhammaan qof kasta oo maxaa la yiraahdaa kamid ah qolyaha ganacsatada dawladda iyo cid kastaba in dhalinyarada markay fikrado la yimaadaan ay ku dhiirigeliyaan si kuwii kale iyaguna u joogay ay ugu soo dhiiradaan inay fikir cusub keenaan oo ay wax cusub sameeyaan marka ka hore la qacan qabto ee meel la saaro ka kalena wuxuu ku fikirayaa adiguna fikir cusub keen dadka taas waxa ku hirgelaya inay dhalinyaradii in fara badan ay aqligoodii adeegsadaan laakiin marka uu mid khasaaro dhalinyarada kamid ah intuu hal abuur cusub la yimid amba wax uu sameeyay dadana cidna ay qacan weyday waxa ku imanaya dhalinyaradii kii horeba halkii uu maray marka niyad fara badan baa ku imanaysa marka qof kastaba waxaan oran lahaa xataa talana Allah ka yeelay inaad ka caawisaan qof kasta oo wax hal abuur la yimiday aad baan idinku mahadcelinay waqtigiina qaaliga ah aad u mahadsantihiin intaas ayaan toddobaadkan barnaamijkeeni ku soo koobaynaa waa anigoo Nuura Maxamed Nuura Cali Xasan Sugule iyo Nagiib oo idinku dhaafay intaan barnaamijkan oo kala ku kulmayna hadii Allah yiraahdo sidaas iyo nabadgelyo